Salaam Allahi calaykum. Soo dhawaad asxaabta qaaliga ah. Waxaan rajeynayaa in aad isbuucii hadda dhoweyd aad si fiican uga faa'iideen dabcan. Isbuuc aad u qurux badan buu ahaa dabcan. Tiriiro badan oo qurux badan ay noo dhaqaaqeen dabcan. Aan update-na idin soo siiyo dabcan Arbacadii. Lacagihii adiga lix lacagood ay ahaayeen. Afar ka mid ah way dhaqaaqeen saan rajeynayo dabcan. oo jiho qurux badan bay aadeen dabcan. dabcan update-kii aan soo dhigay videoga update-ka aan soo dhigay Arbacadii waan ku sheegay lacagihii dhaqaaqay dabcan. Haddana waxaan rabaa inaan dib ugu celiyo dabcan. bal ila socda insha Allah. lacagtan waa JBP NZD. lacagtan lacag aad u qurux badan bay ahayd dabcan. update baan ka sii filayaa habeenkii Arbacada dabcan. si qurux badan bay u dhaqaaqday saad u jeedaan dabcan. caadi ahaanta dabcan maxaa laga soo sameeyey waxaa la qaaday marka koowaad waxaa la dhaho high topkii dabcan, taasoo kuu sheegaysa dabcan in structure lagu tegey. in structure marka hore meeshan laga sameeyey dabcan. structureka 9 rulkiisii all the way la qaaday qaab correction ah lagu qaaday sida structureka meesha kaaga muuqata dabcan. caadi ahaanta haddii aan ku geeyo waxa loo qaabka uu samaysay haddaan ku tuso dabcan aan ku geeyo waxa laho boor cad. dabcan sida halkan ka muuqato oo kale waxaad u jeedaan waxa laho in structure qaab noocan oo kale la sameeyey. maxaa marka hore la sameeyey halkan structure la sameeyey maxaa ogtahay in 9 structure la buuxsanayo waa la buuxsaday maxaa lagu tegay qaab imbalsive maxaa la sameeyey structure baa la sameeyey dabcan. haddaad eegtid waxa laho halkan sidoo kale another structure la sameeyey sida halkaaga muuqato dabcan. aan dib ugu laabto dabcan. waa ujeedaa in la cunay maxaa halka laga sameeyey sidoo kale another pattern kale oo haddaan tago lower time frame-ka one hour time frame-ka kaaga muuqanaya dabcan sidii halkan oo kale. marka lacagtan caadi ahaanta waxaa laga sugaya wax loo targetka hoose oo xageeya ilaa halkan oo 9 rulka aan laga sugaya dabcan. dabcan caadi ahaanta oo kale saddex entry oo waadax ay bixisay lacagtan caadi ahaanta. dadka qaarkood flaggaas ay kasoo qaatay waxaa laho descending ka yar bay kasoo qaatay. dadka qaar flag and continuation ay ka qaateen. sidoo kale dadka qaar jebinta halkan ay ka qaateen dabcan. sidoo kale dadka qaar continuation kan ay ka qaateen. dabcan dhowr entry bay bixisay haddii lacagtan caadi ahaanta zaaid bay noo soo dhaqaaqday dabcan. waxaan filayaa in Arbacadii dhoweyd aan update idin siiyo dabcan. waayo qaab correction ah wax lagu cunay 9 rulekii so waxay kuu sheegaysaa lacagtan in ay sii cad. haddaa sidoo kale wax kaloo logic ku tuso caadi ahaanta mawjida halkan waxaa dhacay wax laho impulsive correction aa dhacay meeshan dabcan. waxaa dhacay all the way in la jebiyey maxaa retrace lagu sameeyey wax laho 9 rulekii structureka dabcan. sidoo kale maxaa la sameeyey sidoo kale retrace wax lagu sameeyey wax laho 9 ruleka dabcan. structure badan baa meesha ka dhacay kuwana sheegaya structure kale inuu ku sameynayo wax laho inuu xushmeynayo oo dabcan uu hoos tegayo dabcan. haddaan u gudbo jaartiga sida hadda ka hor aan ku sheegay wax laho mataafka dabcan. isna wuxuu kuu sheegaya wax laho structure aad u qurux badan lacagtan inay soo aadayso jihada downka. haddaan daily time frame ka tago dabcan lacagtan ama ay dhahaan JBP index maxay kuu sheegaysaa lacagtan inay dhulka soo geli doonto. waayo halkan maxaa ka dhacay waxa ka dhacay wax laho saddex taabasho waadix ah all the way in lasoo aadi doono jihadan selka dabcan. taasaa ay sii cadaynaysa sidoo kale halkan haddaad eegtid wax laho double two baa dhigi karaysaa dabcan. double two bay tagtay iyadana dhigi karaysaa dabcan. haddaan sidoo kale aan tagno wax laho lower time frame-ka dabcan like 1 hour time frame-ka dabcan. dabcan 1 hour time frame-ka waxaan filayaa in isbuucii dhoweyd dabcan waxaan filayaa haddii aan tago lower time dabcan halkan maxaa ka dhacay double two waa la tegey dabcan sida kaga muuqata. sidoo kale halkan maxaa ka dhacay caadi ahaanta dabcan xaggan maxaa ka dhacay wax kaaga muuqda in flag continuation oo ka dhacay all the way maxaa la cunay halkan la cunay maxaa kuu cadaynaysa lacagtan inay all the way lacagtani soo aadayso jihada selka ah. واضح. معقول ما tahay lacagtan inay xogeer ab u laabato dabcan. yes macquul way tahay inay xoogda yarka u laabato cabaar kadibna trading ka tagto kadibna all the way u kala soo geliyo iyadana
lacag intira qurux badan na siisay weye dabcan sababta keenaysa waxa weye halkan waxaa laga yaabaa in kani uu yahay retrace dambe dabcan in lasoo jebiyey dabcan retrace dambe la sugayo retrace dambe dabcan kadibna all the way lasii yaaci doono iyadana qaabkaas insha allah haddana way ordaysaa dabcan oo profitable waaye lacag socoto weye okay lacagta xigta lacagta kale ee euro USD yadana waa qaabkan ay u socotaa dabcan maxaa dhacay lacagtan iyada waxaa dhacay wax laho maxaa meeshan ka dhacay waxaa ka dhacay wax laho 3 taabasho plus double top kadibna all the way waa lasoo yacay minus waxaan hadda meeshan ka jira maxay noqon karayaan waxay noqon karayaan wax laho in xagga retrace lagu sameeyo dabcan kadibna all the way dhulka lasoo galo galeebanaya halkan lacagtan lacag aad u qurux badan oo qaatay iyadana oo aad ilaa hadda weli longu sii haysto waayo daily time frame-ka wuxuu noo sheegaya lacagtan inay tahay lacag jacel because laba taabasho plus double structure QR soo jebiyey retrace dambe all the way in so macquul ma tahay in lacagtani ay samayso wax laho in ay soo yaraa correctionka meeshan ku timaado correctionka soo dheeraysato yes of course way tahay inay correctionka soo dheeraysanayso because waxaa halkan ka dhici karaya haddii correctionka ay soo dheeraysato dabcan waxaa dhici karaya in structure meeshan ka samayso geela tegaya wax laho the beginning of the correction or the night ruleka kadibna all the way shada sarkaa la soo aaday iyadana insha allah lacag aad u qurux badan bay ahayd isbuucii dhaweyd sidoo kale waxaa jiray laba lacagood sidoo kale NZD USD iyo AUD USD lacag aad u qurux badan bay ahaayeen labaduba targetka way tegeen profit targetka ku dhaceen dabcan abridan ku sameeyey waxaa ku cadaanaysa haddii aad eegtid wax laho forward time frame-ka in la yimi double bottom hoose qaab correction lagu yimi waxaa kaaga cadaad halkan structure inuu ka dhacay waxaa la rajeynayaa isbuucan waxaa la rajeynayaa in insha allah la samayn doono lacagahan waa ka baxnay because profit target correction kadibna all the way geel lagu wajahan yahay ilaa night ruleka lagu wajahan macquul ma tahay in xoogaa lasoo doonto double bottom hoose si structure hoose loo dhamaystiro iyo macquul way tahay way soo doonan karaysaa wax loo structure kale dabcan halkan kadibna all the way double bottom hoose samayn karaysaa kadibna all the way idina insha allah falanqeynta haddii aan wax entry ka helo insha allah waa la soo wadaagaya sidoo kale dabcan haddaad soft video yani last picture-kan ka qaaday lacagtan dabcan lacagtan waa AUD USD dabcan last picture aan ka qaaday maxaa meeshan ka dhacay caad ahaanta haddii aan ku yara sharxo dabcan waad ujeedaa structure-kan ku qaadanay isbuucii dhaweyd baan sii wax laho falanqeynta lacagtan si aad uga qaadataan wax laho intri qurxoon isbuucii lasoo dhaafay sidoo kale profit targetkan oo tagtay night ruleka maxay ku tagtay qaab correction maxaa ku cad in lacagtani all the way ay laaban doonto xagee aadi doontaa shahada buyga ayaa aadi doonta dabcan iyadoo structureka guud ba isbedelay waayo structurekan waa structure dhamaystirmay qaab correction lagu yimi dabcan maxaa sameynaya trailing update ku sameynaya dabcan iyadana qaabkaas ay ahayd lacagtani lacag qurux badan bay ahayd dabcan structure-kan oo waafaqday saadna qurux badnayd dabcan lacagta kalena waa tan NZD USD sida meesha kaaga muuqata dabcan iyadana way soo dhaqaaqday maxaa dhacay meeshan in structure iyadana ay ka samaysay loo celin doono wax loo night ruleka dabcan structure-kan inkastoo lacagtan structure-kan ay dhamaystay targetka kood halkan ahaa dabcan dadka qaarkood sidoo kale samaysay wax laho yani structure-kan side ku badan laba taabasho plus maxaa lahaa zenith journal kadibna all the way lasoo dhacay maxaa ku cad sidoo kale in la tegi doono night rulkan sidoo kale macquul in sii socon doono oo profit targetkan la tegi doono dabcan iyadana qaab noocaasa sidoo kale haddii aan iyada update ku sameeyey dabcan inkastoo managing aan ku sameynayay oo aan mar waliba iska ilaalinaya riskiga ama si lacagtan aysan iigu soo kala wareegin maxaa dhacay hadda updatekan ku sameeyey lacagtan waxaa dhacay in update noocan aan ku sameeyo dabcan iyadana 3 taabasho plus double top kadibna all the way lasoo dhacay maxaa ku cad sidoo kale in la tegi doono night rulkan sidoo kale macquul in sii socon doono oo profit targetkan la tegi doono dabcan iyadana qaab noocaasa sidoo kale haddii aan iyada update ku sameeyey dabcan inkastoo managing aan ku sameynayay oo aan mar waliba iska ilaalinaya riskiga ama si lacagtan aysan iigu soo kala wareegin maxaa dhacay hadda updatekan ku sameeyey lacagtan
ay ii sawirantay dabcan in ay lacagtani ku laaban doonto jihadeedaas dabcan ay lacagtan AUD USD ay isku mid yihiin dabcan kadibna ay gaari doonto halkaas insha Allah isbuucyada soo socda. Sidoo kale JPY iyadana wax dhaqaaq ma aysan samayn isbuucii dhow falanqaynta iyadana wax entry kamaan helin. Sidoo kale lacagtan CAD JPY iyadana sidoo kale dabcan wax entry ma aysan siin dabcan. aad baad u mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah waa inoo insha Allah isbuuciyada isbuucan soo socda. waxaa laga yaabaa isbuucan insha Allah in aan soo galo waxa la dhaho sumam dabcan sida ardayda qaarkood iga codsadeen insha Allah oo aan suuqan ini dhex galo dabcan oo aan yacni wax yara in fahansiiyo dabcan. aad baad u mahadsantihiin insha Allah waad soo shaacin doonaa. Zaaid baad u mahadsantihiin asxaabta qaaliga